asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kusoo dhawaada janalkayga Baro Caalamka. waa Maxamed Sayiid. maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc aada muhiim u ah, kaasoo khuseeya ganacsatada, ha noqdaan kuwa yaryar ama kuwa waaweyn. mowduucaasoo ah khaldaadka ganacsi ee dadka badankii ay sameeyaan marka ay ganacsanayaan ayagoon u haysan inay waxaan ku keenayaan dhibaato ganacsigooda. dad badan waxay bilaabaan ganacsiga iyagoo rajaynaya inay guulaystaan oo guulo waaweyn ka gaaraan oo ganacsigoodu sii ballaadho, laakiin mararka qaar ganacsatadu ganacsigu wuu fashilmaa oo waxay galaan khaldaad. sababtoo ah khalad fudud oo la sameeyo ayaa sabab u noqonaya ganacsigaaga inuu fashilmo. badina waxay ganacsigu waxyaabaha burburiya ama fashiliya ama horumarkiisa caqabad ku noqda waxaa kamid ah 5 qodob oo dadku ay dhayalsadaan, balse 5taas qodob waa aan soo xusi doonaa, mid ayaan u dulmari doonaa. ugu horeyn, haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biro channelkayga Baro Caalamka, subscribe, share, asxaabtaadana gaarsii. mar kale iyo kusoo dhawaada channelkayga Baro Caalamka. runtii markii aad qofku marka uu sameynayo ganacsi, ha noqdo ganacsi yar ama ganacsi weyn, waxaa muhiim ah qofka inuu qorsheeyaa oo business plan waxa la yiraahdo samaystaa, uu qorshaystaa ganacsigiisa oo uu marka uu horeeyo raadiyaa, uu isweydiiyaa waa badeecada aan iibin doono baahideeda ma ka jirtaa suuqa, oo dadka aan wax ka iibinaya target gareysanayo oo customerskayga noqon doonaan, iyo qarashka aan wax ku maalgelin doono intuu la eg yahay. waxyaabo badan inuu isweydiiyaa, uu ka fikiraa, uusan iskaga soo boodin ganacsi. marka ugu horeysa, qodobka koowaad wuxuu noqonayaa qofka markuu ganacsanayo ama ganacsi bilaabayo, dhibaatada keenta inuu ganacsiga uusan sare u kicin ama horumarin waxaa kamid ah qorshe la-aan. inuu qorshe la-aan iska bilaabo ganacsiga. qaladka ugu weyn waxay tahay qofka inuu ganacsi bilaabo qorshe la-aan, isagoon waxba qorsheysan, uuna isweydiin su-aalo dhowr ah oo cidda uu wax ka iibinayo, badeecada uu iibinayo noocay tahay, lacagta uu ku maalgelinayo intay tahay, isagoonan isweydiin inuu ganacsi iska bilaabo. waa qorshe xume. taas waxay sabab kamid ah inuu ganacsiguusan horumar gaarin. dad badan waxay bilaabaan ganacsiga iyagoon ka fikirin suuqa noocuu yahay, waxyaabaha baahida ka jirta suuqa, sidoo kale macaamiisha uu wax ka iibin doono isagoonan aqoon u lahayn, iyo qarashaadka uu wax ku maalgelin doono. ganacsi kasta wuxuu u baahan yahay qorshe cad inuu qofka la yimaado, ama business plan waxa la yiraahdo inuu samaysto. qodobka labaad ee sababa in ganacsiga uusan horumar gaarin ama uu burburo waa lacagta ganacsiga iyo tan qoyska oo laysku dheeho, aan la kala soocin ama aada isku darto. tusaale ahaan, waad ganacsanaysaa, gurigii biilashiisiina lacagtaana ka bixinaysaa, oo guriga wax looga baahday dukaankiiaad ka bixinaysaa, guriga korontadia loo baahday waad bixinaysaa, cunug baa iskuul wax uga baahday intaa ka bixinaysaa. ayagiion kala socnayn lacagtii lagu ganacsanaya iyo tii oo guriga expenseskiisa oo laysku dheehayo, ayadan waa khalad kamid ah khaldaadka uu ganacsigu caqabad ku yahay oo sare u kiciisa. tusaale ahaan, lacagta ganacsiga waxaa lagu bixiyaa qarashaadka guriga, amaba lama kala saaraba dakhliga ganacsiga iyo kan guriga looga baahanya expenseskiisa. tani waxay keentaa in ganacsiga lacagtiisii ay lunto, sidaas ay ku weydo, waayo qofkii wixii uu iibiyey meeshii badeeca kale ku dalban lahaa guriga ayuu kusii bixiyey, badeecadii kale la iibin lahaa booskeedu waa faaruq, lacagna looma hayo. taa markay sii socoto waxay keenaysaa in ganacsigii hoos u dhaco oo awood u yeelan weyda marka dambane waxaad badeecada kusoo iibsataba. qodobka labaad ama saddexaad waxaa kamid ah faham la-aan suuqa oo fikir laga haysan, oo ganacsiga layska bilaabay keliya. badeecada aad la timidna in suuqa baahideeda ka jirto, inaanan ka jirinba aadan warba ka hayn. ganacsigu wuxuu guuleystaa marka uu fahmo suuqa. haddaadan suuqa fahmin, ganacsigu ma guuleysan karo. waxay dadku u baahan yihiin oo gaabka badeecadeed ee ka jira ama baahida badeecad ee ka jirta, marka aad fahamto ayaad guuleysanaysaa. sidoo kale, qiimaha suuqa. badeecada aad keentay mid lamid a haddii suuqa taalo, qiimahii la iibinayay mid kasii sareeya haddaad ku iibiso kale, wax cid kaa iibsanaysa malahan. waa inaad badeecadaad iibinayso hadday suuqa taalana qiimaheeda aad war ka haysaa. si lamid ah tartanka ka jira suuqa.
waa inaad war u haysaa. haddii muxuu ahaa ganacsiga uusan fahmin suuqa, macaamiisha iyo tartamada iyo waxyaabaha ka jira, ma guuleysan karo. qodobka afraad oo kale waxaa kamid ah maamul xumo kale. waxawaaye business managementiga waa very important, waa muhiim qofka inuu ganacsiga maamuli karo. ganacsigu inaad maalgeliso, wax iibiso, aad badeeco kale keento keliya ma ahan, maamul ayuu u baahan yahay. marka wuxuu ahaa ganacsi badan ama ganacsato badan waxay ku fashilmaan maamul xumi darteeda. tusaale ahaan xisaab la-aan, waxa la iska iibiyo, badeecaasoo la iibinayaa, lacagtii xaafadaha ama biilashiiyaa lagu sii bixinayaa, mid kale lasii iibinaya, ugu dambeyn ma xisaabtamayo. qofkii wuxuu arki doonaa ama indhaha kala qaadi doonaa badeecadii oo dhammaatay, kaashna uusan haysan wax kusoo iibiyo badeecadaha. marka maamul xumida waa iyadana dhibaato kamid ah waxyaabaha burburiya ganacsiga. si lamida waxaa kamid ah keyd la-aan ama keyd alaab, keydka alaabta oo maaragtay liidata oo kale. markaad wax iibinayso waa stoorka in maaragtay badeeco kale keeda taallaa, tan markay dhammaato macaamiishiina ay joogaan, uusan qofkii iska laaban badeecadiioo la waayay darteeda, balse waa inay stoorka keydka kale kusii jiraan. keydka intaa isticmaalaysana waa inaad sii dalabtaa, haddana mid kale aad sii keentaa. marka keyd xumo, maamul la-aan waa waxyaabaha asalka u ah ganacsigu inuu burburo. maamul wanaagsan ayaa horumariya ganacsiga. qodobka kale wuxuu yahay ee lixaad, suuq geyn la-aan, marketing. qofka ganacsiga haddii aad wax ganacsanayso waa in lagu ogaadaa. haddii aadan marketing samayn, cid ku ogaanaysa ganacsiga, cid ogaanaysa lama arko. marka ganacsiga maanta wuxuu u baahan yahay suuq geyn ama marketing wax la yiraahdo. tusaale ahaan social media waa inaad ku baahisaa ganacsigaaga, advertising badan ama xayeysiin samaysaa, xiriir aad la samaysaa macaamiisha. haddii dadku aysan ogeyn ganacsigaaga, maarta way adkaanaysaa in wax lagaa iibsado. sidaa darteed xayeysiin ama suuqgeyntu waa muhiim, inuu ganacsiga kaalin weyn ayay ka qaadataa. ugu dambeyntii, guusha ganacsiga waxay ku xiran tahay ama waxay ku xirnaan kartaa markastaba sidii aad uga fogaato khaldaadka aan soo xusnay. khaldaadkaasoo kamid ah, marka ugu horeysa waa inaad xusuusnaataa qorshe ganacsigaaga, business plan inaad la timaado oo ganacsigaagu qorshe yeeshaa. intaadan bilaabin ka hor waa qorshe inaad la timaadaa, waadan qorshaha inuu horeeyaa, ganacsiga u dambeeyaa. kadib waa inaad maaragtay kala saartaa lacagaha midaad ku ganacsanaysa iyo midii guriga beelashiisa loo isticmaalayo, waa inaad ku kala socnaadaan. maamul ganacsi waa inaad u samaysaa, management waa inuu lahaadaa ganacsigaaga. hadduu maamulkaaga liito, ganacsigaaga horumar ma gaarayo. samee suuqgeyn marketing ama suuqgeyn samee, marketing badan samee, social media ku baahi, baraha social media ganacsigaaga ku baahi, dad badan hala socdaan, hataa online lagaaga soo dalbado, hala ogaado badeecadaad iibinayso, cid kastana ha ogaato. haddii aad rabto ganacsi guuleysta, waa muhiim inaad maaragtay barato khaldaadkan 5 aan soo xusnay. haddii intaana la soo gaartay, waxaan rajaynayaa in uun wax ku faa'iideyn doono. haddii aad taqaano saaxiibkaagoo ganacsanaya, maaragtay la wadaag muxuu ahaa muuqaalkani, adigana subscribe sii. mahadsanid.